Und es gibt Stammplätze. Haben Sie gebuchte Plätze hier schon? mudanayaal iyo marwooyin maalin wanaagsan hogaamiyaha dalka Jarmalka madaxweynaha gobolka Bayern iyo duqa magaalada Hamburg ayaa waxay nooga warami doonaan wada tashigii hadda dhamaaday mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkiisa ka sii wadnay wada tashigii lagu balansanaa ee madaxda gobolada iyo xukuumadda Jarmalka u dhaxeeyay waxaan u maleynaa inaan maanta dhihi karno inaan ka soo gudubnay qaybtii ugu horeysay ee cudurkan balse waa inaan ogaanaa inaan weli ku jirno bilowga cudurkan iyo inay weli na sugayso la diriirid cudurkan aan la diriirayno tirooyinkii ugu dambeeyay ee uu machadka Robert Koch noo soo gudbinayay ayaamahan dambe waa kuwa lagu farxi karo waxaan rabaa inaan hadalkayga ku sii adkeeyo inaan 2 isbuuc ka hor markii aan qafiifinay bandowga iyo markii aan ganacsiyada furnay inaan sugeynay inay nambarada dadka cudurka laga helayo hoos u dhacaan taasna sida u jeedaan way ka hooseysaa sidii awal hore aad baan shakhsi ahaan ugu faraxsanahay inay taasi hirgashay tirooyinka cusub ee dadka cudurka laga helayo maalin walba ma ahan mid 4 jiifar ah balse waa mid maalmaha qaar 3 jiifar ah cudur isku daarashadana waa mid mareyso in halkii qof uu hal qof wax ka yar ku daarto balse hal degmo oo kaliya ayaa mareyso in 100,000 qofood ay 50 qofood aad ugu xanuunsadaan cudurkan waxaan ku guuleysanay inaan awoodno la socoshada silsiladda isku daarashada cudurkan taasina waa mid lagu xoojinayo hawsha ay qolyaha caafimaadka ka shaqeeya hayaan waxaan doonayaa inaan jaaniskan ka faa'iideysto oo aan qolyaha caafimaadka si niyad leh aan ugu hambaliyeeyo uguna mahadceliyo waana mid naadir ku ah taariikhda Jarmalka in qolyaha caafimaadka ay intibaaha dadka soo jiitaan sida hadoo kale waxaan hadda joognaa meel aan dhihi karno waad ku guuleysateen ujeedada gaabinta xawaaraha uu cudurkan ku socdo iyo inaan awoodnay ka badbaadinta culayskii saarmi lahaa nidaamkeena caafimaadka taasina waxaan ku gaarnay maadaama muwaadiniinta xilligan ayadoo uu fayras jiro si mas'uuliyad leh ay u dhaqmeen sidaasna ay bandow ku ogolaadeen kuna badbaadiyeen nolosha dadka kale taasina waxay suuro gelisay inaan annaga iyo madaxda gobolada aan bandow qafiifin kale oo dheeraad ah ka tashano sidoo kalena go'aano ka gaarno Wir haben in den letzten Tagen eine Vielzahl von Konzepten der Fachministerkonferenzen bekommen und wir haben auch eine Vielzahl von maalmihii ugu dambeeyay waxaan helnay fikrado badan oo ay wasiirada arrinkan quseeyeen siiyeen waxaan sidoo kale wada shaqayn badan ka helnay dallado iyo ururo badan waxaan rabaa inaan si niyad leh ugu mahadceliyo markuu qofka eego awaamirtii nadaafadda ee la soo saaray ee in xilligan fayraska uu jiro laga taxadaro ay tahay sida loo aqbalay iyo sida loo dhaqangeliyay Wir haben heute sehr lange noch mal darüber diskutiert, was sind die Dinge, die weiter gelten. maanta si aad u dheer ayaan arrimahaasi uga doodnay waa maxay waxa in sida hadda ay yihiin la rabo in loo sii daayo way iska caddahay doodna kama taagno in weli sida hadda oo kale 1 mitir iyo bar loo sii kala fogaado iyo in maaskooyinka lagu qaato gaadiidka dadweynaha dhexdiisa iyo xarumaha ganacsiga dhexdooda meelaha qaar ee hadda la furi doonana taasi waa waajib waxaan ka wada hadalnay kala fogaanshaha dadka inuu muhiim yahay oo in ilaa 5 bisha Juun la sii dheereeyo kala fogaanshahaas ay tahay ayadoona la eegeen tirada cusub ee dadka cudurka ku dhacayo yaraanteeda Beschränkungen weiter gelten. Angesichts der niedrigeren Infektionszahlen soll der Aufenthalt im öffentlichen Raum jetzt nicht nur alleine mit den Angehörigen des ma inay dadka ehelka ah amaba meel isla degan oo kaliya banaanka ku kulmaanba mise dad kale waa la kulmi karaa qofku wuu la kulmi karaa dad kale oo uusan la degnayn ama uu ku cid ahayn balse taasi waa mid cad oo lagu xadidayo isu soo dhawaanshaha dadka ee badan maxaa yeelay waxaan doonaynaa inaan ka fogaano inuu infectionka si fudud u faafo dass Infektionen sich
schnell weiter verbreiten. Bereits getroffene Entscheidungen von einzelnen Bundesländern bleiben davon unberührt. go'aamada kale ee la gaarayna waxaa loo deynayaa maamulada gobollada ayadoon la eegayn kala duwanaanshaha go'aamada qaar ee deegaanada ee ku aadan waxyaabaha la furayo iyo xilliyada la furayo go'aan duwanaanshahaasoo oo uu keenay heerka kala duwan ee infekshanka deegaamada iyo nidaamka federaalka ee dalka ka jiro ayaan waxaan si wadajir ah u wada go'aansanay hal wax oo muhiim ah oo uu waqtiga soo socdana muhiim yahay haddii uu jiro farqi dhanka gobollada ah wuuba jiraaye haddii uu jiro hoos u dhac tirada dadka cudurka laga helay marka waa inaan helnaa hab aan ku dhihi karayno meeshii uu cudurka mar kale si gaar ah uga kaco aan xoogga saarno gesagt. Wir haben es jetzt noch einmal verschärft und spezifiziert gefasst und gesagt. awal hore go'aamadeena waxay ahaayeen kuwo si guud aan wax uga hadli jirnay hadda arrinkaasi si gaar ah ayaan ugu adkeynay u caddeena una niri gobollada ayaga laga rabaa in magaalooyinka iyo degmooyinka hoostaga ee 7 maalin ee ugu dambeysay 100,000 ee qof 50 qof ka mid ah uu cudurka si xun u galay inay go'aamo arrinkaasi ku aadan ka gaaraan tusaale haddii uu yahay infekshanka mid ka kaco meel local ah tusaale isbitaal xarun dad waaweyn amaba xarun kale markaasi waa in wixii go'aamo xakameyn ah ay meeshaasi oo keliya ku ekaadaan Dann kann dieses Beschränkungskonzept nur diese Einrichtung umfassen. balse haddii uu infekshanka yahay mid si gobol ahaan u faafayo kaasoo aysan caddayn dhanka uu ka faafayo markaasi waa in gobol ahaan go'aamada xakameynta ah loo gaaraa sidaasina lagu wadaa ilaa ay 100,000 oo qofood 50 qof wax ka yar ay noqdaan tirada dadka uu cudurka si xun u hayo marka la eego 7 maalin ee ugu dambeysay Ich will darauf hinweisen, dass wir zurzeit nur einen einzigen Landkreis in Deutschland haben, in dem das Infektionsgeschehen größer als 50. waxaan rabaa inaan tilmaamo in dalkan dhan ay hal degmo oo keliya jirto taasoo 100,000 oo qof uu cudurkan 50 qof dad gaaraya uu si xun u hayo waxaan ka wada hadalnay barnaamijka mobilada lagu soo degsan karo ee tracing appka iyo fikradaha iskuulada oo ay wasiirada waxbarashada ka wada hadleen waxaan qabanay laba wax oo muhiim ah mid waa iskuulada iyo ugu horeyn xanaanooyinka waan ognahay in carruurta ay rabaan inay noloshoodii caadiga ahayd ku soo laabtaan taasi muddo ayay soconaysaa balse maamulada gobollada ayaa qorsheyn dhankaasi ah diyaariyey kuwaasoo macquul ah normales Leben so weit wie möglich zurück wollen, das dauert. Aber die Bundesländer haben hier ja jetzt auch Konzepte vorbereitet, bei denen das zunehmend möglich ist. Und eine Gruppe ist mir von ganz besonderer Wichtigkeit. hal group oo waxaa jira asigana si gooni ah muhiim iigu ah kaasina waa dadka waaweyn ee xirooyinka waayeelka ku jira kuwaasoo isbuucyo dhan booqashada laga mamnuucay waan ognahay waxay taasi ka dhigan tahay in dadkaasi xataa ay xaq u leeyihiin xilligan wax la fududeynayo in ayagana laga fikiro sidaa daraaddeed ayaga ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo kuwa cudurka demensiga qaba waxaa loo ogol yahay inuu hal qof si joogto ah usoo booqan karo eine feste Kontaktperson wieder regelmäßig Zugang zu den Pflegebedürftigen oder den Menschen mit Demenz oder den behinderten Personen in Behinderteneinrichtungen auch haben kann. Wir haben dann eine Vielzahl von anderen Bereichen noch behandelt, unter anderem das Thema Geschäfte, die jetzt waxaana sidoo kale ka wada hadalnay dhinacyo kala badan oo ay ka mid yihiin ganacsiyada cabirkooda oo weyn ama dhanka nadaafadda darteeda aanan loo furi karin iyo sidoo kale sportska iyo bundesligaha heerkiisa koowaad iyo heerkiisa labaad kuwaasoo bishaan May dhexdeeda sharciyada loo dejiyay ayagoo raacaya ciyaaraha iyo garoomada ku soo laaban kara und wir haben dann gesagt, dass die Länder in ihrem Bereich viele andere Bereiche, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. waxaana sidoo kale dhahnay in gobollada waxyaabo badan oo aanan hadda rabin inaan ka hadlo inay ayaga fikrado u diyaariyaan tilaabana fikradahaasi u dhaqangeliyaan sidoo kale waxaa muhiim ii ah in la dejiyo fikrado dhanka shaneemooyinka tiyaatarada iyo opera housyada ah wasiiro dowlayaasha iyo wasiirada dhaqanka ayaana weydiiyey sidoo kale in dhacdooyinka diiniga ah ayagana si kudayasho mudan ay u qabsamaan Möglichkeiten, dass solche Veranstaltungen auch wieder stattfinden können. Alles in allem haben wir eine sehr konstruktive warka dhammaadkiisa waxaan yeelanay dood wadaag miro dhal ah ayadoonan la eegayn kala duwanaanshaha maamulada federaalka iyo fikradahooda
waxaan rabaa inaan dhaho in meel walba iyo xataa wadatashiga dhexdiisa in lagu sheegay in awaamiirta nadaafadda in lagu taagnaado ay tahay tusaale haddii maqaayadaha dhexdooda miisaska 2 mitir la kala fogeeyo waa in dadka aanan isku cid ahayn amaba isku meel degnayn ayaguna intii loogu talagalay ee kala fogaansho ah ay kala fogaadaan oo haddii 2 qof uu miis 50 mitir ah u dhexeeyo markaasi sharciga nadaafadda lama dhowrin taasina waxay noqon doontaa mid loolan adag ku ah xataa ganacsiyada hadda la furayo balse waa mid wanaagsan oo horey noo dhigayso waxayna aragti siinaysaa iskuulada iyo xanaanooyinka waxa muhiimka ii ah ma ahan waxyaabaha badan ee la furfurayo ama la fududeynayo balse waxaa si wadajir ah u niri haddii ay meel wax ka dhacaan markaasi waa inaan haysanaa hab ama farsamo oo ma ahan in waddanka dhan khatar la geliyo oo dib loo celiyo balse deegaamada ama gobolada ay wax ka dhaceen oo keliya waa in xoogga la saaraa in die Gefahr kommen, dass wir zurückgehen müssen, sondern einzelne Regionen und insgesamt ist das für mich jetzt ein ausgewogener. Isugeena kaasi waa go'aan isku dheelatiran.